kulan ballaaran oo ay Muqdisho ku yeesheen culimada Soomaaliyeed ay kaga hadleen xaaladda masjidka Al-Aqsa iyo xayiraadda ay Yahuuddu ku soo rogtay in muslimiintu salaada ay kulanka ayaa waxa ka soo qayb galay xubno ka kala socda bahda culimada diinta sida hay'adda culimada Soomaaliyeed majmaca culimada Soomaaliyeed iyo culimada ahlu sunna wal jamaa kuwaas oo dood dheer ka yeeshay arrimaha Falastiin iyo daanta galbeed ee Qudus barakaysan tukadaan qaar kamid ah madaxda culimada diinta ayaa si wada jir ah ugu baaqay muslimiinta caalamka inay ka dhiidhiyaan tacadiyada ay sameeyaan ciidamada Israa'iil oo ay kamid tahay xayiraadda galida masjidka Al-Aqsa iyo diidmada tukashada salaadaha maanta waxaa isku nimid sida maqlayseen qodiyad muhiim ah oo ku saabsan tacadiga Yahuuddu ay ka wado masjid Al-Aqsa oo dadka muslimiinta ahaa loo diiday inay ku cibaadaystaan ayadoo masjidka muqaddaska ah xurmadiisa uu leeyahay oo dhammaan diimaha samaawiga ay xurmeeyaan ayadoo in cibaadaysto ay tahay qaanuun caalami ah oo dadka dhan loo ogol yahay ayay Yahuuddu waxay sameynayaan taxadiyaal ka dhan ah wax kasta oo qaanuun ah wax kasta oo sharci ah wax kasta oo sharaf ah warbaahinta iyo marti sharafka kale waa salaameynaa intaa ka bacdi sida laydin sheegay shirkan wuxuu ku saabsan yahay sida aan uga xunnahay waxa ka dhacaya بيت المقدس أو أهمشي نرجع عليه الصلاة والسلام لو نلمين أو أهمسك كيس الدحات أي ليه تذكر مسلمين الله اعترافي أو حتى تبقى مسلمين أو اعترافين ماشى سليمان ماشى مسلمين بيناتنا وحتى مقاوحة ضادها كتاجيين يعني وما ده نحضر اللي كتاجين آدي يا روحنا هاي وحكي دعية وحق مسلمين تقدمت وواجه intaas inay ka kacaan inay kasoo horjeestaan bayaanka culimada Soomaaliyeed ee ku aadan waxaa gudubka masjid Al-Aqsa taariikhda 23 bisha toddobaad 2017 kuna beegan 29 bisha Shawaal 1438 dunida muslimka gaar ahaan culimada waxay isha ku hayeen kuna hayaan dhacdooyinka foosha xun oo ka dhacaya masjid Al-Aqsa oo ay gumaysiga Yahuudda muslimiinta u diideen inay galaan masjidka kuna cibaadaystaan ayagoo u geysanaya dil iyo dhac iyo tacadiya kale sidaa darteed waxay culimada Soomaaliyeed soo saarayaan bayaankan soo socda kow culimada Soomaaliyeed waxay aad iyo aad u cambaareynayaan falalkaas foosha xun waxayna u arkaan xadgudub ka dhan ah xuquuqul insaanka iyo xorriyadda cibaadada waxaa kaloo la yaab leh aamuskan la isku raacay oo aan loo kala harin oo ku aadan qadiyadan taagan annagoo ammaanayna dowladaha qaarkood oo ka qaatay mowqif fiican kana hadlay arrinkan laba culimadu waxay ka digayaan sirta ku jirta waqtigan lagu soo aadiyey ama lagu soo kicay tacadiyadaas waxay lagu baaqayaan in si degdeg ah looga jawaabo falalkaas xun inta goor tahay oo aan la isdhigan saddex culimadu waxay taageerayaan walaalaheena Falastiiniyiinta ah ee heeganka ku ah masjid Al-Aqsa iyo hareerihiisa dalka Falastiin ayaa Yahuudda kula jira dagaal waxaana inta badan ka dhaca tacadiya xagga bini'aadamka ah Muuse Maxamuud Shiiso Ariel TV xafiiska magaalada Muqdisho.